muddo ku siman 4 cisho waxaa Antalya ka socday shirka ururada qaaradda Yurub iyadana maanta isla magaaladaasi lagu soo gabagabeeyay shirkaasi. Ururadii ka soo qayb galay shirkan ayaa waxa ay ku doorteen gudoomiyaha ururka qurbo joogta Galmudug Diaspora marka la soo gaabi loo yaqaan Gideon waxaana gudoomiye loo doortay Farax Aadan Yuusuf. gabagabay shir ka socday magaalada Antalya dalka Turkiga muddo 6 maalmood ah halka oo aan ku dhisanay urur weynaha dalada Galmudug marka magaceeda la soo gaabiyo magaceedu yahay Gideon ayaa halka ku dhisanay waxa halkan isugu yimid 13 urur oo ka tirsan Galmudug iyo marti sharaf kale oo isugu jira xildhibaano mas'uuliyiin ururo waaweyn ayaa halkan isugu yimid waxaan halkan ku dooranay maanta gudoomiye ku xigeen iyo khasnaji iyo 5 xubnood oo kale aniga waxa la ii doortay maanta gudoomiyaha dalada Gideon ما شاء الله وإلهي بمهد إسكاله جو فرحض له أيه كلن كانوا نوجود ماضي إلهي بمهد إسكاله وحكلو جرو ولا لا السحل قامي إن هلكن عن فريسنه وحنا نلها جي ضلدا بيدن بولن دياسبرا أيه قعنا السيسي خاصة نيكل يرادو عبد الفتاح عبد الله جامع جنة قله ما شاء الله نكا إلهي بركيو أرين متقانا مدو أيون أرنتا إن أن سمينه أيون نقول قرب تاجنا qaar kamid ah ururadii kale ee ka soo qayb galay madashii shirkan ee ka soconayay hoolka Kalados ee Antalya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub maanta runtii waxa farxad ah inaan soo gabagabeynay shirkii 4 bari socday oo isugu yimaadeen ururada ka soo jeeda deegaan ahaan Galmudug si ay u dhistaan Gideon oo ah urur ay ku midaysan yihiin oo dalada isku xirka ururada Galmudug ee Yurub sharafeen noqon aan ka qayb galno waxaan aad ugu faraxsanahay intay isugu yimaadaan cala aqalli oo wax dhistaan israacaan in ay wax ka soo baxaan oo dadkii isfahmo oo dimuqraadiyaddii Yurub iyo isfahamkii iyo xushmadii iyo wada shaqayntii Yurub ka barteen oo celiyaan deegaankii shir weyn oo ka dhacayay ama lagu dhisayay Galmudug dalada Galmudug maantana si fiican buu u dhacay arrimo badan laga hadlay annagana waxaan aad iyo aad u taageereynay in gobol kasta oo maaragtay uu isku yimaadaan ay dhistaan dalad si hadhoodii midoowaan kadibna ay u noqdaan Soomaaliyo dhan ururo oo isu yimid oo midooway oo dantooda yaqaano ujeedada ugu weyn ay tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in wax loo qabto waxaan ka soo qayb galay shirweyne ka dhacay Antalya waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadii aan hayay xuquuq insaanka ahayd in la ii magacaabay waana farxad weyn waana la shaqayn doonaa si daacad ah shaqadaas oo horena uga soo shaqeeyay 10 sano oo noo qaabilsanaa dhinaca xabsiyada tii oo si ballaariyay ayaa maanta la ii magacaabay aad aan ugu faraxsan guddigii diaspora oo ay ku midaysan yihiin dhammaan jaaliyadaha ka dhisan ururweynaha Yurub ee halkaan marka halkaasi waxay muujinaysaa in Soomaalidu ay isku tashato gaar ahaan Soomaaliya sidii dagaalka sokeeye ugu bilowday waxa ay ka dhiman weyday dadka qurbo joogta ah waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa in maanta qurbo joogtii diasporada ee Galmudug ka soo jeeday ay aasaasteen dalad ay ku midaysan yihiin aniga oo ah Aadan Ibrahim Xaaji oo ka soo jeedo ururka Somali Cultural Integration Farcayn oo ka dhisan Jarmalka waxa maanta la ii doortay inaan ka noqdo jaaliyada diaspora Galmudug gudoomiye ku xigeenka soo gaboobay shirkii dalada Galmudug loogu dhisay halkan oo loo fadhiyay muddo 2 cisho ah oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 13 urur oo ka yimid dawladaha Yurub wasiirkii hore ciyaaraha Galmudug Saadaq Daahir Mire ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay gabagabada shirkan aad waxaan ugu faraxsanahay muddo dheer waxaan ka soo shaqeynay inaan u sameeyno ururada qurbo joogta Yurub ee Galmudug waxaan aad iyo aad ugu soo fikirnay waqti badan soo gelinay inaanu dalad u sameeyno runtii maanta waxay noogu soo dhamaatay gabagabo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta urur dalad midow lagu midaysan yahay ee Galmudug ay ka soo baxdo meesha
waqti badan baan soo gelinay runtii waxaan aad iyo aad u rajaynayaa daladaas inay noqoto tii dadka iyo dalka waxtar lahayd waxaan hore uga sii soconaynaa runtii aan sii qabanqaabinaynaa inaan Soomaaliya oo dhan u sameeyno daladahaas oo kale in daladaas ay noqoto dalad Soomaaliya oo dhan wax ka bedesha maaha galmudug kaliyaata hadafkayga anagu wuxuu yahay inaan magaranaysa kor u sii baxno ummadda Soomaaliyeed ku midoodo oo meel walba magaranaysa dal iyo dibadba lagu midoobo marka waa bilow fiican inaan galmudug u sameeyno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii aanu ka soo shaqeynay 9 bilood inay maanta mid dhaleen oo ay yeesheen gudoomiye ku-xigeen iyo secretary aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Antalya.